Dowladda Soomaaliya ayaa niyad u qaboojisay mucaaradka kadib war qoraal ay soo dhigeen barta Facebook-ka. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble uu diyaar u yahay inuu wadahadalka sii wado xilli walbana uu diyaar u yahay inuu waqti la qaato mucaaradka si loo gaaro heshiis afgarad ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu markasta diyaar u yahay sii wadista wadahadaladii uu la lahaa musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya si guud ah iyo si gaar ah si loo gaaro heshiis afgarad ah dalkuna uu doorasho u aado, ayuu yiri Mr. Macalimow oo ah afhayeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sheegay in dhowaan uu Muqdisho ka furmi doono shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk Soomaaliya kaasoo ka dhici doona xarunta Xalane, iyadoo shirkaas uu kasoo qaybgeli doonaan beesha caalamka iyadoo horey aad loo diiday oo madaxweyne Farmaajo aad u diidan arrinkaas. Arrintan ayaa imanaysa xilli Khamiistii labada dhinac isku fahmi waayeen qodobo la xiriira geedi socodka hanaanka doorashada dalka iyo mudaharaadyo ay rabeen in mucaaradka ka sameeyaan daljirka Daarsoon. Mucaaradka ayaa dhawaan madaxweynaha ku eedeeyay inuu carqaladeynayo wadahadalada u dhexeeya ayaga iyo xukuumadda federaalk Soomaaliya. Wixii warar ku soo kordha kala soco madadaal cusub xilli walba iyo goor walba. Dowladda Soomaaliya ayaa niyad u qaboojisay mucaaradka kadib war qoraal ay soo dhigeen barta Facebook-ka. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble uu diyaar u yahay inuu wadahadalka sii wado xilli walbana uu diyaar u yahay inuu waqti la qaato mucaaradka si loo gaaro heshiis afgarad ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu markasta diyaar u yahay sii wadista wadahadaladii uu la lahaa musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya si guud ah iyo si gaar ah si loo gaaro heshiis afgarad ah dalkuna uu doorasho u aado, ayuu yiri Mr. Macalimow oo ah afhayeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sheegay in dhowaan uu Muqdisho ka furmi doono shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk Soomaaliya kaasoo ka dhici doona xarunta Xalane, iyadoo shirkaas uu kasoo qaybgeli doonaan beesha caalamka iyadoo horey aad loo diiday oo madaxweyne Farmaajo aad u diidan arrinkaas. Arrintan ayaa imanaysa xilli Khamiistii labada dhinac isku fahmi waayeen qodobo la xiriira geedi socodka hanaanka doorashada dalka iyo mudaharaadyo ay rabeen in mucaaradka ka sameeyaan daljirka Daarsoon. Mucaaradka ayaa dhawaan madaxweynaha ku eedeeyay inuu carqaladeynayo wadahadalada u dhexeeya ayaga iyo xukuumadda federaalk Soomaaliya. Wixii warar ku soo kordha kala soco madadaal cusub xilli walba iyo goor walba.